Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan habboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. Qodobada aad ku daawan doontaan haddii barnaamijku ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya xiisada bariga dhexe ayaa u muuqata mid saansan si weyn loogu dareemayo dagaal xilli labada dhinacba wada hadaladii ee markaasi lagu kala booday welibana sheekadu ay taagan tahay qofba qorigii iyo hubkiisa. Haddaba maxay tahay hadalka sida weyn ugu soo yeeray hogaamiyaha ugu sareeya dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei? Fariinta adag ee uu diray saameyn intee leeg ayay mar kale ku keeni kartaa xiisada bariga dhexe waqtigan ka taagan iyo weliba sidoo kale Trump oo aan ognahay isagana halka uu ka joogo dagaalkaasi isagoo weliba hubkiisa ugu horeeyay mar hore halkaasi ku sii daadgureynay. Waxaan sidoo kale isla eegaynaa hogaamiyaha dalkaasi Brazil oo isna shaaca ka qaaday arrin la xiriirta madaxweynihii dalka Venezuela xilli Bob culus halkaasi laga warinayo. Dalka Venezuela maxay tahay dooda waqtigan shaaca laga qaaday? Maxayse keeni kartaa waqtigan haddii xilligan Mareykanka oo dagaal kula jira Iran mar kale kiiska Venezuela dib loogu furo? Haddaba hogaamiyaha Brazil arrintan eedeyn intee leeg ayuu u jeedinaya Mareykanka? Waan isla eegi doonaa. Waxaan sidoo kale isla eegi doonaa Israel ayaa loo arkaa inay waqtigan isku sii fidinayso dalalka bariga dhexe. Ergeyga gaarka ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inaysan wax dhib ah aysan ku jirin inay isku fidiso Israel bariga dhexe. Hadalkaasi waxaa si degdeg ah ugu soo jawaabay wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Xiisada dagaalka bariga dhexe ma u muuqataa inay markaasi saameyn xooggan ku yeelan karto haddii Israel ay markaasi si weyn ugu fido bariga dhexe. Waxaan sidoo kale isla eegi doonaa Mareykanka iyo weliba sidoo kale Iran wada hadaladii in muddo si weyn loogu dhursugayay ayaa gebi ahaanba dhulka lala daray oo weliba cidba durufkeeda ayay u dhaqaaqday. Waa lagu heshiin waayay madalihii isku tagayeen dhowr dal Turki iyo weliba sidoo kale Geneva meelo fara badan ay markaas isla soo jiireen. Markan nin walba iyo tabartii ayay ku soo idaatay. Qodobadaasi weliba wuxuu nagu soo kordha ayaan ku qaadaan dhigi doona qubanaheena xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. Waa maalintii afraad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Saaxiib waxaan ka dalbanayaa walaal inaad noo cimaamadaano channelka subscribe noo saartaan like tana saaxiibo fara badan ayayna tusaysaa heenaga hagranina mahsanidin soo dhawaada saaxiiba. Aan ku bilaabay xiisada bariga dhexe ayaa laga dareemaya saansan colaadeed iyo weliba diyaar garow dagaal in markaasi lagu qaado dalkaasi Iran xilli gobolka ee Mareykanku maraakiibtiisa dagaal ee USA horey loo geeyay. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka baarandegayo duulaanka lagu qaadayo dalka Iran kadib markii xal laga gaari waayay wada hadaladii ka dhacay maqsad iyo weliba sidoo kale Geneva oo markaasi lagu xoojinayay hubka nuclear-ka Iran ee markaasi ku howlan tahay. Dalalka Yurub ayaana muwaadiniintooda ugu baaqay in ay ka baxaan gudaha dalkaasi Iran iyadoona markaasi si degdeg ah ugu tagaan goobaha ee gabaadka markaasi u noqon kara inayna ka fogaadaan dalkaasi Iran. Warbaahinta Al Jazeera ayaana markaasi baahisay in Mareykanku uu si gaar ah markaasi u beegsanayo saraakiisha ciidanka ilaalada ee kacaanka ah ciidamada sida tooska markaasi ugu amar qaatay hogaamiyaha dalkaasi ugu sareeya Ayatollah Ali Khamenei. Dhinaca kale dalal badan ayaa diiday in markaasi saldhigyadooda laga weeraro Iran iyagoona markaasi cabsi ka qabaan ee falcelinta kaga imaan karto Tehran. Dagaalka Iran ayaana hadda ah mid markaasi si weyn looga warsugayo isagoona markaasi uu noqon doono mid saameyn ku yeelan karo bariga dhexe Afrika ilaa iyo weliba koonfurta Aasiya. Waxaana ilaa waqtigan la shaacinayaa in Ayatollah Ali Khamenei isna dhankiisa talaabo culus u qaaday isagoona dhammaan howlgeliyay ciidamadiisa iyo weliba guud ahaan ciidanka ee dalkaasi Iran. Waxaana waqtigan xeebaha iyo weliba sidoo kale xindaabyada Iran si weyn uga loolamaya ama gaardin ciidanka haya ciidamada dalkaasi ee Iran. Waxaana si weyn ay uga hortagayaan isku dayga Mareykanka ee sida adag halkaasi ugu qorsheynay mana jirto ilaa hadda qorshe adag ee loo qaaday. Waana saansaanta colaadeed ee waqtigan sida weyn markaasi looga baqdin qabo inay mar kale ka dhaxoloosanto. Wixii ka soo kordha qubanaheena dambe ayaan markaasi ku qaadaan dhigi doonaa. Dhinaca kale Luzia Incoyo madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa shaaca ka qaaday in haddii Nicolas Maduro la maxkamadeynayo ay tahay in lagu maxkamadeeyo dalkiisa Venezuela balse aan lagu maxkamadeyn karin dibadda gaar ahaan Mareykanka ayuu yiri. Hadalka madaxweynaha dalka Brazil ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loogu muransan yahay meesha lagu maxkamadeyn lahaa madaxweynaha ee dalkaasi Venezuela oo in muddo markaasi u afduubnaa dalkaasi Mareykanka. waxaana inta badan la warinaya ama la sheegayaa in aan marnaba la ogolaan doonin in lagu maxkamadeeyo dalka dibadiisa iyadoona markaasi Lula
markaasi uu waraysi ku bixiyay ku sheegay isagoo carabkana ku adkeeyay in arinta hadda ay markaasi muhiim ay u tahay in dib markaasi loogu soo celiyo dimuqraadiyadda dalka Venezuela. Arintan ayaana markaasi imaanayda xilli shacabka Venezuela markaasi marnaba aanan faragelin shisheeye ku imaanin, ayuu yiri Lula, isagoona markaasi uu xusay taariikhda afgambiyada Mareykanka uu taageero ama markaasi ay taageeraan Latin America sida Chile iyo waliba Argentine iyo waliba Uruguay. Haddii markaasi uu aqbalo in hogaamiye dal uu markaasi duulaan uu ku noqdo ama uu qabsado madaxweynihii dalkaasi, taasi waa arrin aan la aqbali karin, ayuuna ku daray hadalkiisa. Hadalladan Lula ayaana markaasi imaanaya xilli madaxweyne ku-xigeenka gaarka ee dalka Venezuela Densely ay markaasi ka shaqeynaydo sii deynta boqolaal siyaasiyiin ee waliba dhaqdhaqaaqiyaal iyo waliba qareeno lagu xiray muddadii markaasi talada uu hayay Maduro oo markaasi u bilaabatay 2013. Dhinaca kale haddii aan eegno ergeyga gaarka ah US Envoy ayaan markaasi soo jeedinayaa in markaasi ay fiicnaan lahayd haddii Israel ay isku ballaarinayso saameynteedana aynan ku yeelan karin joogitaanka bariga dhexe. Hadalkan wuxuu muujinayaa wakiilada Mareykanka inay markaasi u arkaan in Israel xaq ay u leedahay inaysan markaasi dhibaato aydan ku qabin haddii markaasi ay ku fido ama aysan saameyn ku yeelan karin dalalka bariga dhexe ee ku yaala gobolka bariga dhexe. Arintaasi waxaa keeni kartaa bal yiri dood badan oo muran siyaasadeed, maadaama dalal badani oo Carbeed iyo waliba muslimiin ah ay si adag ugu soo horjeesteen in markaasi ay isku ballaariso Israel, gaar ahaan qaybo kamid ah ee dhulka lehestaha Falastiin. Waana qatarta ugu weyn ayaa la yiri ilaa waqtigan saameyn ku yeelan karto haddii aanan si dhab ah looga hortagin. Israel ayaa lagu wadaa qorshaheeda waqtigan in si guud ahaanba isku faafiso dhulka lehestaha daanta galbeed ee Falastiin, iyadoo dadka muslimiintana si weyn ugu soo horjeedaan. Lama oga ilaa ay hadda halkay ku dambeyn doonto, iyadoo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si adag ugu soo horjeestay Qudus una ku tilmaamay in Iran iyo waliba sidoo kale Mareykanka xulufaysigooda waqtigan saameyn ku yeelan kara haddii shacabkiisu ay degaan qaybo kamid ah dhulkaasi ama ay markaas